السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان حياتي سعودة وهذا سأل هرب نربى لتيم وحنا هكذا من قصة دون عشرة حلقات شيباركا وحاورين قصة 10 كلمة حرام هاي يورين أناليسيسكا قيبتي سي ولبا قيبتي لبعض كيميكال إكزامينيشنكا إنه سوق قادمين 10 في كواد وها بيتشكا ما أنتم حنا قادمين 10 في لبعض جلوكوزكا waxaynu isweydiinaynaa glucose urine ko what is the glucose of urine glucose of urine ko waxaa kale isweydiinaynaa what is the normal glucose of urine iyo waxaa kale isweydiinaynaa sign and symptoms glucose of urine waxaa kale isweydiinaynaa 1 2 3 4 waxaa kale isweydiinaynaa start high glucose what is the high glucose of urine iyo qodobka shanaad oo ah normal high glucose of urine shantaa qodob baynu isweydiinayna shantaa qodob haddii aynu si yar oo fudud soo koobkoobno qodobka koowaad oo ah what is the glucose of urine glucose of urine waxaynu ku qeexi karnaa glucose of urine waxaynu oran karnaa waa testi measured the amount of glucose in urine waxaan ku qeexaynaa ka glucose ama glucose urine waxa weeye glucose of urine waa is test waa shaybaar ama test lagu sameeyo in lagu cabiro amountiga ama xaddiga glucose urine ku dhex jirta ayaynu oran karnaa glucose of urine glucose of urine laga baaro waxay ka mid tahay qaybaha fruitka ee shaybaarka lagu sameeyo xaalada laga baaro ama waxay ka mid tahay qaybta chemical examination-ka ee urine laga baaro waxaa jirta what is the normal glucose of urine caadi ahaan glucose waxaa jira urine glucose of urine waa litan wax yar baa laga helaa litan amaba waaba absentiba mararka caadiga cabirka lagu cabirno waxa lagu cabiraa 25 miligram ee desaliter saasay yidhaahdaan marka normalkeedu badanka urinta caadi ahaan kaadida lagama helo markuu qofku uusan wax macaan lahayn wax kale oo saameyn ku yeeshay macaankiisu kaana aan lahayn qodobka saddexaad ee isweydiina waxa weeye calaamadaha ay muujisato qofka macaanka calaamadaha muujisato waxaa ka mid ah qofka macaanka saynkiisa waxaa ka mid ah increase urination waxaa qofka badanaya kaadidiisa way badanaysa ko waxaa kaloo badanaya increase thirst haraadkiisa wuu fara badanaya adu way badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah oo aynu soo qaadan karnaa gaajada increase hunger gaajada ku badanaysa waxaa ku badanaya maxay tolay gaajada kale
waxyaabo kale oo adag saameyn lagu yeesho waxa kale oo su-aasha afraad isweydiinaya high glucose of urine haddii ay qofka uriinkiisu sareyso high glucose in urine haddii qofka uriinkiisa ay sareyso maxay looga karnaa badanka waxay u samayn kartaa kow horta inuu qofku diabetic leeyahay waa qodobka koowaad sokorta u sarayn karto waa marka ay timcaa xanuun ahaan ay tahay waxaa kaloo jira normal high glucose normal high glucose marar iyadoo normal ay sareysaa jirta kow waxaa ka mid ah wax loo yaqaano gestational diabetes laba waxaa ka mid ah kidney problem condition kidney problem baa ka mid ah tan waxay u samayn kartaa gestational diabetes waxa la yidhahdaa hooyadu xilliga ay uurka qaado waxaa jira macaan ku dhaca oo loo yaqaan gestational diabetes xanuun caadiyan oo macaan oo toosa maaha laakiin hooyadu maalinta uur qaado ilaa maalinta umulayso way macaan baa jirkeeda ku jiraya maalinta umushana uu ka baxay kaasaa loo yaqaan gestational diabetes waa normal ahaan buu u dhacaa waxaa kaloo jira kidney problem kelida caadi ahaan waxaynu naqaanaa inay qofka jirkiisa nadiifiso oo ay filtration ku samayso oo wixii macdanaad ku dhex jira biyaha iyo sharaabka iyo waxyaabaha ay jirka ku celiso wixii aan loo baahnayn ay jirka ka saarto marka haddii kelidii problem ka jiro awood uma yeelanaysa inay filtration samayso oo ay kelidii nadiifiso oo sokortii jirka ay dib ugu celiso ay ka saarto biyihii oo intaan urine loo bedelin marka iyaduna saameyn bay ku yeelataa waxaa jira oo ugu dambeeya glucose urine test meesha daamoonta waxay ugu dambeeyaan ujeedaa normal glucose kan waynu sheegnay high glucose kan waynu sheegnay sida aan sababtoos kan waynu sheegnay marka haddii aynu overview kooban aan dhammaantood shanta qodob ka siiyo glucose horta waa tas oo ama waa horta glucose caadi macaan baynu naqaanaa ama diabetic glucose waxa weeye xaddi caadi oo caafimaad ahaan bay jirka ugu jirtaa xaddigaa wixii ka sarreeya haddii inta normalka loogu talagalay ay dhaafto waxaan odhana waa diabetic marka glucose dhiiggana waa laga hubiyaa kaadidana waa laga baara marka mostly dhiigga xaddi la yaqaan oo ku dhex jira kaadidana sidoo kale badanaa horta laguma arka laakiin haddiiba laga helo oo qaybtan marka chemical examination laga daaro tusaale ahaan tas caadiga oo kale oo chemistry tas lagu sameeyo waxay sheegaan inuu 25 miligram gaari qodobka labaad waa normal caadi ahaan kaadu waa normal urinta ku jirta badanka lama arki karo oo dhibistiigeeni badanka absent ku soo qora ama sida caadiga markaynu laababka joogno aynu dhibistiiga urinta geyno meesha looga talagalay resultiga negative ku qoran macnaha wax sonkor kaaduna ma dhex socdaan haddii lagu arko markaa ama dee macaan bay noqonaysaa ama xaaladahan kale aynu sheegno bay noqonaysaa waxaa jiroo kale isaga asayto haddii qofka tusaale ahaan dee mar macaan baa u leeyaho waa la yaqaanaa mar labaad waxaa jirta haddiiba aan la ogeyn tusaale ahaan in macaan qofka leeyaho oo kale calaamado lagu ogaado marka haddii uu qofku isku arko tusaale ahaan inay kaadidiisu farabadato oo kale markuu biyo cabiga ama suuliga xoog ugu noqonayo sidoo kale mar walba haraadiyo biyo badan cabayo waxyaabahaas oo kale gaajo badan uu mar walba dareemayo waxyaabahaas oo kale waxay sheegayaan in macaan jiro oo kale waxaa kale oo qodobkeena ku jira high glucose macnaha haddii kaadidii glucose badan lagu arko waxay noqon kartaa qofku inuu diabetic macaan jiro gestational diabetic ku dhiisu mararka qaar uu sarreyn kara kidney problem markuu jiro kale uu sarreyn kara laakiin marka aynu leenahay mar waa xaalad caadiya oo qofkii macaan baa haya sababtan uu macaan ku soo kacsan macaan baa jirkiisa haya oo xanuunkii diabetic sax ah
ayaa ku dhacay marna xanuunadan kala jira gestational diabetes uu ka mid yahay oo iyadoo aan macaan maxay ahayd tolay insulinta jirkiisa la soo deynayo ayaa haddana waxaa jira maadaama hormoonada ay hooyadu xilliga uurka hormoono badan oo kala gedsan la soo deynayo badanka waxaa khalqal ku yimaada insulinta iyadoo aan xaddi badan jirka ka saarayn oo sonkora kidney problemkana waxaa weeye keliyihii baa shaqadoodii gabay ay problem maadaama ay xanuun ka jiro kelida ama kelida uu xanuun ka jiro oo maxay ahayd tolay tusaale ahaan ketonka oo kale ama waxa la yidhahdaa kelida meel dhagxaano kale ka galaan ama xaaladii doontaa noqoto haddii xaalad caafimaad darra ay kelida ka jirto waxaa dhici kara inay sonkortii ka saari kari weydo kaadidii iyo dhiiggii oo dhiigga iyo kaadidaba ay si kaadidii dhex sonkorta iyagoo dhex sabaynaya lagu arko marka qaybta glucose insha allah intaasay noogu joogaysaa insha allah casharaanteenu saas taxanaad u socon doonaan nagu dhiirigeliya idinkuna like-ii subscribe-ta waayadan dambe kor baynu socnaa maasha allah casharaan fiican oo tayadana waa idiin soo gudbin doonaa insha allah casharaanteenu saa taxanaad way noogu soconayaan casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu